السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبايدين سلام يا أصحابتي إذا شرفت بدن ميل كستا أدونك أتكجوكتان وحيدين لي هاي خير يبرك يا نور عندما بإذن الله الرحمن. أدبايدين سلام يا أصحابتي يقول صبرتي قاع مفرن يا قلبي فرن كسو دوادا جنال كسيروخ شخ وانا بسيروخ شخه مرول بنا وحيدين لي هاي دامانتين قلبك ayaa idin salaamay gacantu waa iska qolofe idin lama gaaro laakiin hadalkaygu ayaan idin deeqsiinayaa un idin la gaaraa maanta runtii tan iyo xalay kilibyo la ii soo diraayay baan rabaa horta inaan ka hadlo oon ka jawaabo iyo nin caytamayo oo asxaabtayda kilibkaygii hore ee aan duubay inta ii aragtay inaan beelweynta daarood beel kamida aan caayay ama aflagaada kuma aysan jirin mana caytamin qabiil lama caayo dadka ii soo qorayay komentiyada haddaba lahaa reerkaas ayaad wax ka sheegtay nacayb reerkaasaa kugu jiro ma necbanaan karo sababtay tahay dhiigaygii iyo dhacaankaygii iyo kuwii hoostayda laga soo qaaday iyo wiilashaydii iyo gabadhayda ayaa ka dhashay maasha Allah tabaarakallah dad cayn kara maaha waa mar walbana dad waalidii ah xaq hooyo haday noqoto iyo xaq aabba haday noqotaba bidix iyo midig way iga jiraan insha Allah biidmillaahir rahmaan kaliban uga hadli doonaan ka soo hadli doonaan laakiin kan dan ayaan u soo galay kilibyo la ii soo diray insha Allah biidmillaahir rahmaan aad waxaan u salaamayaa asxaabtayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kilibkaana waxaan idin leeyahay waxaad gaarsiisaan hade ninka dad buu qaniis ku sheegay ma magacii de qurux ku dhiglaan ugu yaraa batuula kay ma ugu yaraa because ma dhihi karna nin raga oo nin raga khaniis ku caayayo ama nin raga oo nin raga dhahayo dabada laga foolay ninkii sheegay ma dhaafto adiga kun soo dhaafi mayso marka hore adiga ku dhaafi mayso waxaan ahay youtuber Soomaaliyeed ugu aanbaxsan ugu haysto qabyaalad ma aqaano waxaan hubaa oon dhaar ku maraya gabadha aniga isoo wacday intay ku soo wacatay oy ku tiri سيكيو waxaad ii samaysaa shout out maxaad ku tiri horta yaa tahay ayadoo markaa ku dhahaysa waliba marna dumaashigay baa tahay caruurteeda la dhalatay ya markay ku tiri gabar daaroodaan ahayna youtuberada daarood waa badan yihiin baa ku jawaabtay شارد أيها قصة بيان محاتري قبيلة دان كسهر جنة دالن يراها دان هاي دالن يرا نمي أديك كلوينت أديك يا قبيلة كلفوجدين أديك يا وناق يا شرف بقى كلفوجتهين هذا ننرجع تهينا ننرجع خنيسكم هذا عاير هاين ننرجع هذا تهينا gabadha ugu quruxda badan gogol iyo sariirkaaga maysa tagi lahayn nin sariir looga tago YouTube markiiba la soo dhigay CK wada lagu hayaa shalay markaad isaysatiin shiina culaaye annagoo shiina culaayo ku heeb ah shiina culaaye haysanay on karbaashayna on shiina wiilka daalhayn oo ka deg lahayn maanta aad kabtan ayuu soo dhigata oo tiri sarqaan gees diiraw ninkii Nigerianka maxaa horta codkiisa baan idin dhaariyo la ii soo diray codkiisa ayaaban hayaayo la ii soo diray laakiin inta si hor dhacban ka dhiganaya kow ninka naag shabahay ee tinta galaantay gabdhaha yaryar ee inamaha tibaha loo galaama jiray ninka tinta soo galaantay katiinka iyo siliskana soo xirtay horta waa adiga
naag hadduu qof matalayana dirici iyo gogradda iyo garbasaarti baa kaa maqnaaye dhan walbaad naag u matashay afkana lipstick baad marsatay sadaqa haddii wax lagu sadaqaysanayana somaliland intaa tagtay baad hargeysa ka tumatay lacagtii aad ka soo heshay maxaa dadka masaakiinta u siin weyday maxaad u siin weyday meel walbaa layga soo dhaweeyey koonfur galbeed baa layga soo dhaweeyey jubbaland baa layga soo dhaweeyey jubbaland hadda waa in la daahiriyaa roob minallaahi intuu u soo do-o kiinsiika waa in laga dhaqaa hadday soo dhaweeyeen runta laysu sheegayaa ya beelweynta daarood ismaaciilna mas-uul asagaa ka ah shalay gabdhaha daarood ismaaciil waxay isku haysteen facebooka oo la isu saaraa miyaad aragteen gabar facebooka saaran oo gabar daarooda ku dhegan gabar facebooka saaran oo qabiil daarooda ku dhegan miyaad aragteen aaway gabdhihii caayi jiray maxamed cabdulaahi farmaajo aaway gabdhihii daarooda is caayi jiray kabtan ayuub libin buu ka gaaray libin annagaa og aniga warsan ahaa og iweydii aawa gabdhihii daarood ee caytamayey ee iyagu is caynayey ee maxaa cabdulaahi farmaajo cayn jiray ee daarood dhexdiisa is cayn jiray ee axmed madoobe caynayey aawe xaggey aadeen lib ninkii ka gaaray ee guulka geystay ya ee hadalka geystay ee gabdhahooda saa gacanta ugu qabtay kabtan ayuub buu ahaa lib iyo abaal baana looga hayaa kabtan ayuub hadduu yidhaahda salaama intaad qaadataan cirka kora diyaar baynu nahay inaan wada korro saa waaba garab istaaga nin beeshiisa u tartamahaye ya daarood mideeye weeyo kabtan ayuub nin dabadiisa ceshan waaye ninkan ceshan waaye nin dhahaya waa la fuulayna wallaahi se ku dhaafin adiga ninkii sheega ma dhaafto adiga kuma dhaafto shabbah haddii la dhahana dumar adaa shabbahay dirici iyo gograddii garsaarti baa kaa maqnay libistiigoodii baad soo marsatay daawadoodii baad marsatay kareemyaday naagaha isku caddeeyaan baad marsatay natural midab uhuu wataa kabtan ayuub nasabiyad ma lihide xooluhu wati ee ebarkiisa ah muxuu ku hadlay ninka ducug u baahan yahay baniib waxaa laga yaabaa kateetar in xaarka looga qaaday nigeeriyahan ku qabtaa wani horta xaarka ma cishtaa sarqaan geysdiilow aafuku dabarta afyartaadii aa kamri ku dhaafiyey markaasaad leedaha daarooda matala afyartaadii hadda waa afyartaadii aa kamri ku dhaafiya ilaa sugaysa waa ka dhac ilaalin waaye inta kamri ka dhargay ma ninkaas ayaa xuquuqda daarood raadin kara nacalaa shaydaan ku yaalay oo ay kulistaa ha cabaanina daarood waa reer waryaa wuu raadinayaa wuuna raadin karaa wuuna keeni karaa ee mid soomaaliyeed buu raadin karaa cabdiqaadir boos oo naqaano faataala oo maanta 2 sano haddii la siiyo caawa xasan sheekh shariif cayaha cabdiqaadir boos waa in adeerkaa macaysa amadayso who care ama cayamada cabdiqaadir boos waa in adeerkaa waxa iga galay male haduu kula dhasho kaa yimi wuu kugu abtirsanayaa laakiin bidix iyo midig kabtan ayuub baa aniga igu abtirsanayo bidix iyo midig asagaa igu abtirsanayo beelweynta daarood ismaaciil markay arrinteeda istaagtana gabar daaroodoo kablalax ka soo jeedaana naagu taagan baan mar walba ah qabyaaladdu ninkii diidi lahaa iyo kaan dooni lahayn iyo kii yeeli lahaayow qabyaaladii dhulka waa lagu joogaa waana loo kala degan yahay waana loo kala safanay haddaan qabyaalad lagu kala soconaynin maxaa loo soo qaxay maxaa ina keenay halkani qabyaalad haddaysa jirin maxaa ina keenay halkani hadday qabyaalad jirin maxaa adiga ustari kaaga dhigay qaxootiga ee baaskiilka ku dul saaray lacagta aad firdhinay sidoo aad leedahay qabiilkaaga kaalay ii socay lacag baan ku siinayaa maad gaari ku gadad masaakiinta aad maanta meel walba ku tuugsanaysid
lacag ka xanaaqay qof kale hadduu lacag afka ka soo qaado wiilkaas waa karkaraya waa xanaaqaya war lacag jeclida war maxaa qaldan war lacag jeclida batuula kay lacag jeclida باي معن lacag jeclida ya lacag jeclida shiina culaya ogeen lacag buu wuxuu yiri haloo ururiyo ninka la yiraahdo maxaan ku rahaa sharma boy maxaa soo dhajisay lacag buu dhacaya lacag buu yeelaya lacag buu dhahaya wariya libta isla jeclide wariya waxbaan qabtay inaad dhahdo jeclide wiilasheenana ceebtiya cambaarta u ogolide inkaari kugu dhacday shalay ahayd markay hooyada iyo abkaaga iyo isirkaaga naagta muqdisho joogtay heblaaya soona la yiraahdo ay cayseen ka dhicinayno dhahayna hooyadii ha caayeen ya maantaad waxaad daba dhiganaysaa kabtan ayuub war kabtan ayuub madaxu daarood u saaran yahay madaxa meel ka sarreyso qof bilaada la saari lahaa ma jirto kabtan ayuub halkaasuu saaran yahay cid ka dejin karta male geesinimada iyo kartida iyo hal adeegana waa wuxuu u dhashay kabtannimadana waa wuxuu soo maray oo uu ku caan yahay adigu maxaa tahay digsiya dhaqow adigu maxaa tahay adiga digsiya dhaqow ninkan dadku ka soo jeedaan hadda ku barayaa daarood ismaaciil yaa ragduhu caysan baatihiin duriyadii jabartii ragda horeen fog baatihiin dunjiga sheekh cabdiraxmaan duubku saarayahay diricyadii dohombiriyoho dowlad baatehen dalkana meeshahan ka degnaaha way ducaysan tahay daruhur baaho hortoo dadku way ka wada cabaan allahay dohortay daharoodenoho edhalo allahay dohortay daharoodenoho edhalo allah ii doortay kabtan ayuub inuu imatalo ilaahay baa ii doortay adigu imaada dooran dad wanaagsan inuu ka soo jeedana xaqiiqatu bilcil la isma wareysanayo ninkana matali karana inuu asaga yahay ogsoono oo nin kale uusan booska imaan karin ciyaartana u baaqan mayso qayla dhaan waa wareey maxaa adiga loo baajin waayay abaartu way jirtay markaad ku dhiganaysay showga hargeyso maxaa loo baajin waayay abaarta dadka way haysay waana jirta waana la dhamaanayay Soomaaliya inta tagtay baad cid ad wax ku sadaqaysatay ay jirnood soo laabatay sadaqa maqaala taala ya qaala rasuulullah taqana jaahil yahowinaade ina xabad kale garanaynin inaan kuga sii fogaado inta ka badan diyaar u meehi laakiin kabtanka kala bax afka kala bax kabtanayo labada indhood ku aragtay kabtanayo banaanka kaaga soo dhacaan baqti howdhashiisu meel mar oo fariiso qabiil dhanbaa i ceersanayay bal maxaa lagugu falayaa fata qolof lahaatay bal maxaa lagugu falayaa qabiil dhan kugu ceersanaya oo kugu falaya maama milyan baa saatri maama milyan afkeeda waa xor waa hooyo Soomaaliyeed barta ku jirta ninkay doontay qabsanaysa maama milyan kana daarood iyo kana hawiye midna ma dhahdo kana qabiil kale midna ma dhahdo waxaas laga rabaa ninka marqaatiga aad u haysid ee aad tiri beelweyn tarashaq isxaaq buu ka soo jeedaa ee kabtan ayuub u ahaa turjubaan oo kabtan ayuub wuxuu ahaa nin noocaasa laga rabaa waa laga rabaa banaanka soo dhig ya banaanka soo dhig hadday qabyaalad wax taraysana ninka koobaad ee qabyaalada keenay adigu ahaa gabar ku tiri ii samay shaaroodna ku yiri horta yaa tahay daarood markay ku tirina ku yiri ragga daarood waa ku jiraan youtuberinta daarood u tag buu yiri youtuberinta daarood u tag waligayn qof bili aadan ah intaan la hadlay ma dhihin shaarood ii samay ilaahay baan ku dhartay inaanan dhihin kabtan ayuub oo maanta ina abtigay rumaanan dhihin ii samay inta meesha ku jirta oo aqaano oo garanayo hebel dhihi karo ayaanan dhihin shaarood ii samay ya alxamdulilaahi rabbil caalamiin in iga badan oo igu filan waan haystaa in idaawatana waan haystaa war ilaahay ku xamdiya ku shukri lacag markaad maqashid futadayay laasmika ku kala noqonin ay ku kala weynaanin bahashayay ku kala fakanin isku celi
isku celi waxa ku haya isku celi iimaanka isku celi irsaaqadna ilaahay ka bari salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kabtan ayuub ayaa maanta hiiladiisaan u taaganahay mar walbana u taagnaan doonaa beelweynta daarad ismaaciil la guuliyo gobonimo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh